hooyo waxay igu tiri aniga aabaha go'aan baan gaarnay inaan isaguna saddexdiisa haysto aniguna saddexdeeda haysto marka aabaha ku noqo aabaha la joog aniga hay imanin anuu ninkan guursaday nolol kala samaystay aabahana ma ogola inuu idin biiliyo maadaama saddexdan kale uu biilin waayay adiga afar kuma hayn karo waxa dhacday inaan ku dhaho aabaha la garaaco oo aabaha loo sheegay inuu kula joogayaan aabaha la wacay waxa lagu yiri inanta yar soo baxsanaysa tiwaayl ma yar hayla joogta biirka bixi maadaama aanu saddexdii kala hayo aaba wadiidi wuxuu aanu biir ma bixinayo hataa saddexda carruura aad haysatana ku darsada afarka gadiisina waa alxamdulillah hadaanad ku dareynood haynayna iska soo celi hooyaday sidii bay samaysay subaxnimadiiba dib gaariga la saaray Itoobiya lagu celiyay sideedii baa sameeyay wanaam sugay aabahay iyo reerkii iyo dadkii u dhambeeyay culuubay waan diiday waxaan daan hooyadii ma soo arkay walaaladii ma soo arkay ma joogay magaalada waxaan rabaa inaan hooyadii la joogo walaaladii la joogo waxaan isku daynaa aabay ka dhaadhiyo aabahay wuu diiday taas wuxuu dhan biil ma bixinayo hooyadiina way diiday inay hayso mar afaraad baan isku dayay waa soo baxsaday waana mid hargeysan mid hooyadii baan u sheegay wax ku hooyo aabbo ka soo baxsaday mana rabin inaan aabbo la joogo waxaan rabaa inaan habla la joogo hooyadii taladeedu waxay ku soo goysay mar hadduu aabbaha diiday inuu biilka bixiyo inaan anigu guriga ku soo gudin anigu waan diiday inaan aabbahay ku noqdo oo waxaan idhi waxaan rabaa inaan hooyadii la joogo waxaa dhacday habeen waa markaan kuu sheegay shalay oo kale Itoobiya ka imid habeennimadii hooyadii ilamay hadal kalamnimadii waa tan ii sheegtay diyaaranka ilamay hadal waxa samaysoo kale ma jirin oo ahayn diin iska gidayso inay guriga saarto hooyadii iyo inuu weyno walaashiya curadeeda way wada hadleen heshiisku wuxuu noqday ina caawto ma habeenimo weeyaan inta guriga laga saaro baag laga saaro oo la igu dhaw magaalada Galadaba abaartu ma habeenimo markay tahay hooyadii inantii walaashay bay soo dirtay waxa ku tii dharka ay sidatinta u qaatay baag soo xidho sidii baa dhacday inantii walaashay hada tii weynid ma hay tii reed isku fiicanahay xilli joogtaa inantii bay timday waxay u tir walaalo xal kale wala waayay wana haynina amba intuu dhilu ugu celiyo aminad guriga ka tagto hayban kuuri maxaa la sameeynaya markaa waxay u tir waa tumankii habeenimo adeera guriga imanaya adeer wani kuuya qaba adeera guriga imanaya intuun adeer iman una ku arag inaken dibada meel buu keenaya waxaan ku xigay tagnaa walaalo manaba meel kala garanaya waxa isku dayay inay fahansiiso waxay ku tirooyo adeer markii guursanayso waxay ku heshiiyeen saddex carruur inay hayso ay ku meeshinin afar carruur hayso adiguna dawlad soo dhaxday aabban uu diiday inuu biilka ku siiyo marka diina si joogto ma noqonayso inantii walaashay habeenkii tumankii weynimo guriga soo kaxaysa waxay soo raadisay guri family qof family ah oo leeyahay saan guriga soo joogo habeenkii waxaan xasuustaa ilaa waqti dambe ay nagu qaadatay inaan guri la soo helo leeyahay guriga leeyahay family hatta ma rabo inaan tiitalka qofka sheego laakiin family inantii walaashay guriga ma kaykiisa wada timday aniga kaliya guriga ku saaray dadkii xaafadii leeyahay la hadlay meeshii naar ku saatay laakiin waxaan ku uri waan soo booqday gabadhi way soo dhaweysay
استفعام بلا هذا الشيء اسكتشو بيوتري اسكفادي هاي سيدي بان كبدي كوريدي كامل نقطة لا تشوف كبدي فهمني هاد مدو مركنا تشوي إلا على بلوت سيدي عم بيلا دقمي جرتي markii dambe ay aragtay inuu aabaniga soo wardoonin hooyaniga soo wardoonin aabana Itoobiya jooga wuxuu mooyina hooyada jooga maadaama narkiisa jooga adigu gabadhi markay aragtay inuu hooyaniga soo wardoonin aabaniga soo wardoonin waxay la dhaqantay saan qof loola dhaqmay heer han gaari xataa inaan anigu caafimaad qaban jirin wadooyinka ku dhac ka awood yaraanaya may dee hadal gumaysi qaylo inaa laygu yiraahdo waxaan sameeye calashaan inaa layla dhaqmo si aan loola dhaqmi karin qof bilaadan